سؤال شيء يقول مثلا كحوالي investment كده وحيابها كمارت advantage كمكوتا إنه كدر سنو دكتورة وراح يا Somali entrepreneurship spirit throughout Africa وحنا من Somali investors marka how can we get back Somali capital and Somali entrepreneurship qodobka مكوتا إنه كدر سنو حتى هالك لفتيدا investment capital financial capital كمان مقنع أحملنا world record by ستاجروا and to my observation and empirical evidence معها scientific research لكن واحد أقول هاي بوس كي المجال جروا دحية وأنا خلدين 8 متر أو نفط 2 متر شن بقول إنه كنت كل $1 إلى كلا ترصدي شن بقول كنت كل $1 الدنيا المرشدة وين على جبسة بقول الله قف بان شغلة قسية مركا lacagteen halkan taala gaar waxay yiraahdaan put your money where your mouth is halka afkaagu yaal iyo lacagtaaga inay isku beegtid markii qaadka iyo waxyaalaha ka soo seeban lacagta halkan taala iyo talbiyada bulshada Soomaaliyeed xirfadeeda ugu bedeli karnaa comparative advantage of Somalis and with the multi HIPS تبليغ inspiration كذا يوم كمان صلاصة وأنا اسكت وهاي وكدر كرنا أيضا مدام regional experience أبني وليه إنه ندك الصومالية وإلى ساوث أفريقيا إلى كينيا هنتيجي الصومالية كلية عير دبوا وصود الدارون لفتوا وضلكوا الإخوس كيالا أنت أجبري كلوري ما بتصير وحنا practical issues هذا الناس كيالا هذه أو اللي ودي لها مع 40 or 20 by whatever the amount is. شن بقول يا كنتوا كل وقت السنة لما نحن بقى قبل الله هاي وعايز لها ولين نقالي وفرنت هاي أرمي سوى كاكير يتوقع تضمنا نظم ورشد الله قد يساعد the same perception بقى ده نسوي دين أيوة حرير state speculation كلا يهدوه كلهم مقنعة ده وكيد 2008 ليش كده بيقولون هذا قالها هدوك مربو وروح ماي مركا يقولوا لي وعيقلين ده يبقى عن طيب بنفير سيد كلية جيستو productive واحد شغال أبور يدبكوا أي مال جشدان بس وعيش أقولي حوانا كوير لابتو وبول كوبمان ماركت فيها كأفريقية هلا حقيقي زي بشيء ما هي الناس سوارها فوقها في ما يقعها للي ويدينا تم ويكون بتاعي وحوي ماركت فير معها وحوي one man who وحلي له أما misguided leadership Ethiopia had dozen years كده كانوا يجريني وحن دكوا هذه ومن وحوي PRDF إثيوبيا waxay ka soo qaaday poster child meeshii calaamada faqriga ka soo qaado xoolaha dhaqaalahooda soo qaad ani su'aashan isweydiiyaa waxa weeye haddii dawlad tan ka sii furfuran ay jiri lahayd oo ku dhiiran lahayd in dhaqaalaha loo simo oo marketka loo ogolaado example yardan ka bixin macluumaad finance ka hadashay weli waxaa ku jirta oranaya dalka intaa leeg laxaadkaa leh experiencekaa leh aqoontaa leh hal sheeroo ajnabiga loo ogol yahay inuu financial institution ama bangi ku yeesho ama ku yeesho ma jiro waxaan isleedahay markaa haddii ay adduunkana u furnaan lahaayeen dhaqaalihiisa hadda waan maqlaynaa waa kuwa le crown jewelska wax la yihahdo kambaniyadii ugu waaweynaa baanu gadaynaa Ethiopian Telecom iyo Ethiopian Airlines iyo waanu minority shares iibinaynaa annagu badaanan gaarin dowladu wax kontarooshahu waxa weeye sidii private sector oriented maxaa yidhaahdaa imika investmentka laga hadlayay investment law ma jiro rule of law ma jiro marka private sectorku ama Soomaali ha ahaado ama ajnabi ha ahaado wuxuu doonayaa security buu doonaya guarantee buu doonaya for his not only life but also assets inuu xoolihiisa inay badbaadaan marka barnaamijkan ilaahayna barino market fearkaana aan ka baxno oo si aan u aamino
kartida ay leedahay ummadda Soomaaliyeed meel ay joogtada haddii isagoo xabad dhafoolka laga hayo South Africa ka yar baax mushtari tan inta la ka qaban kara بالحوار كله يهمه قولي عشان تبغى كنتوا كان يبغوا سيسنة سبوت كيرنا ده بالشيء كده هلا سيرة وده وين يحكي لك